wax walba video aan ka sheegayo haddaan horumarinaa waan dhaaranaa kitaabkaan ku dhaaranaa. bismillaahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa salaamantiin dhammaantiina meel kasta adduunkaaga joogtiin waxaad ilaahay wanaagsan ahi videogan waxa waaye video xamaasadiisa iyo wax walba wato waaye. videogan anaga intaan soo fadhiisanin ka hor wallahi been ma idiin sheegay ani 2 rakac soo dugti maxamuud 2 rakac soo dugti gacanteedana waxa ku jiro kitaabka ilaahay wax walba video aan ka sheegayo haddaan horumarinaa waan dhaaranaa kitaabkaan ku dhaaranaa wax walba si ilaahay la og yahay aan u sheegaa. midda kale yani maaha waa ogahay social media inaysan maxkamad ahayn laakiin arinta waxay gaartay heer meeshii ugu dambeysay. sax ma fahmaysaa? sax marka ma ahayn in meeshan la keen laakiin sidii dad badana ku wareeray arintan yani dad badana falanqeeyay dad badana seerabaan yani nin walba fikradiisa ku soo bixiyay sida loo cadeeyo annagana wixii ana ognahay ilaahana la og maalinta qiyaamana waa la imaanaa maalin oo yawma laa yanfac maalun walaa banuun waa la imaanaa oo adi iyo adoo qaawan dhididkaaga nin walba sidii ilaah uumay waa la imaanaa haddaa yacni oo annaga wax qaldan sheegno siday wax u dhaceen aanan u sheegin maalinta qiyaama imaanee. kitaabka waa kana maxamuud wallaahi billaahi tallaahi ilaaha i jeedo hadalka aan sheegayo haddii hal been aan ku daro maalinta qiyaama aa laysoo istaajinaa ilaahayna waa ii jeedaa ilaahow kitaabkaa ku dhaaranooyaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan sheegayo waa run. adigana waxaa ku dhaaranaa gacanteeda waa xoogaa waa arki kartiin waxaa ku dhaaranaa waxaan sheegaya hal oo wax oo beena inaan ku dareen kitaabka ilaahay quraanka kariimka waa arkaysiin marka kitaabkana inta video aan dhameynayno intaas noo yaala wax been aan sheeg marabna anaga. horta sheekadan waa la socotiin dhammaantiina qof aniga xaaskayga ahayd sidoo kale waxaan u haystay in ciyaal ay dhalin sidoo kalena madax banaan tahay. arintan markii ay social media saas soo gashay aniga saa idin sheegay waaye marka hore saa idin cadeeyo waaye gabadhan marka hore aan shukaansan jiray aan isbarani wax ay ii sheegtay ciyaal inay leedahay nin ay kala tageen ama asqabi ma jiro ilaahan ku dhaartay ilaahana ii jeedo. sidoo kale waxaan arkayay dad badan dhahayaan kamaal gabadhan waa sixradi. horta qof ilaahay ku xiran sidoo kale ilaahay yaqaano sixir iyo wax mala awaal ah wallahi inaas ku dhaqaaqaynin aan hubaa aniga kaba soo qaad yani qof yani wax iska dhahawa xaqiiqada may horta waxayna ka dhaharaa taas sixirka haddii aas noqdo ma hadaas ma ku saabsan shahaadatu zuur yani qof waxa ogeyn qiila waqaala qof aa ku soo dhahay ama qof aa ku soo tuhmay qiila waqaala yani ahadiista iyo kutubkan wuxuu sheegay waa ogtahay si fiican waqaala ana ma kula xisaabtamay ninkan ma kula xisaabtamay yani adi ilaahay sax waa. marka su'aasha waxay taagan tahay ma gabadhan kamaalow adiga ma ogeed oo inay xaas tahay ama la soo furay ama ilma ay leedahay ma ogeed wallaahi oo billaahi oo tallaahi aniga ma ogeen. sidoo kale sheekadan hadda in aan la soo fadhiisto anoo wax walba oo xaqiiqsaday waxay noqotay in anaga raadino xogayaal badan rasmi ah haddii ay noqoto gabadha familkeeda. baryahan dhan anaga wallaahi been ma idiin sheegay ma seexanin ani maxamuudna xali dhan ma seexanin anaga waxaa raadinayna keliya xog rasmi ah xog xaqiiqi ah waxa la noo sheegay kulley waxaa la lahay 100 qof been ma isku raaci karto masti hal eray isku raaci karaan hal eray isku raaci karaan. marka wax walbo ku saabsan xogta ah helni maxamuuda ka sheekeen doono sidoo kale anigana wixii hadal gadaal aan ka dhigi doonaa. marka maxamuud aa u wareejinaa wallahi been midin sheegay video aan duunan balkoonka joognaa dhaxanta dhacayso wallahi ma maleysan kartid sababtoo gudaha mugdi waaye nalkiina waa naga halaabay. marka hadda aarwa maxamuud inaan u wareejiyo waxa ilaah la ogyahay as ogyahayna anigana as ii sheegay aan ku raacay asiga ka waramaayo. soo dhaw maxamuud. Soomaaliyeed meel walba joogto dhammaantiin way salaamayaan horta arintan cirka isku shareereysay dad badan يعني Soomaaliya dhan ba way ka soo hadashay xoogaa waxa waa dhaxan zaid ah jirtay xoogaa jaakada iska soo bedelay horta sidoo ilaahay ila ogyahay arinta uga hadlaaya kamaalna yani waa la hadli karay arinta waxa sameeyay horta anaa sameeyay
xiriir ah waxaan sameeyey inaa yani dadka ayada relativekeeda ah inaa xiriir la sameeyo oo yani raadiyo habeenkii aana seexanin marka kamaala u bandhigay marka kamaala waxaan dhahay arrintan saan loogu hadlooyo marka ma adina raadisid information marka wuxuu dhahay gabar ani yani idhahoyso oo dhaariyey oo ani idhahoyso yani ma qabo yani mana lee qabo ciyaalna ma dhalin yani gabar waay waa og tahay cidlamaa ugu tagaa way dhahay marka ani marka danta waxay ugu qasabtay inaa ani raadiyo keligay marka ani iyo waa badneen ani iyo marka yar kale oo walaalkay maxamed la dhahay isna waa raadinayay dhinaciisu ka raadinayay marka information wax badan aan istutusnay dad marka Facebook dad ayada u dhadhow Facebook dad mar hore isla hadashay Facebook waa jira dadka dhan waa arkeen mar dad ayada comment ka bixisay dadkaas aan raadiyay mustaqaaniinaan dhahay ilaahay ma kula og yahay dad ani waxa raadsanaya oo mas'uuliyiin ah marka ilaahay ma kula og yahay wuxuu dhahay ilaahay waa ila og yahay hadaa rabtid waa sheegi kartaa yani wax la qarinayo ma aha hani inay wax dhashay ciyaal ay leedahay wax dhan waa jiraan haddana waa ka soo tagay nin kale waxaa helay adeer asna la dhahay Ismaaciil Afro soo ii sheegay nin wanaagsan ah si wanaagsan wax ii fahansiiyey gurigiisa ku soo kortay gurigiisa oo yani ay ku soo aroostay ay ii sheegay aan arintii waxa ila sii noqonayso hurdada waa iga sii tagaysay ma fahantay ilaa hadda ma seexan sidii xalay ilaa hadda marka arintii waa la yani arintii meeshii horta xaqiiqada meeshii ka soo baxaysay dadka dhan been hadana walaasheeda la hadlay way ii sheegtay eeda kala jirta ayadana Canada joogto oo ayada habareerteed farxiimiya farxiin la dhahayo maleena farxiimaha habareerteed waa la hadashay adna ana la hadlay farxiya la hadlay waxa la hadlay eedo xumburo in la dhahayo maleena ayada cambaro la hadlay wixii dhan qof yani haduu ciyaalnimada ku yaqaanay xitaa waxa ku dheelaysu sheegaya ma fahantay marka wax aqliga galaya la rabaa markii dambe arintii marka saas u ogaaday ee cadaatay kamaala marka waxaan dhahay niyo horta wallahi waa ka shakiyay ana waxaas dhahay kamaal arinta mislu ogyiin wallahi oo billahi habeena kurbeysna inaan isla ogaay maxamed ma waa ogaaday seen markii isina aniga marka maya ilma dhashay kala xarag ku xiran yahay aniga inaan guulis maxamed aqli loo baahan yahay ma sax waaye laakiin hadana waa raadiyay hadana yani dadkii kala familygii kala waa isoo xiriiriyeen waa isla hadalnay dhowr mar isla hadalnay yani kool dheer waqti dheer waa wada hadalnay wax waa isfahansiinay markii dambe xitaa aan waxa u fikiray xoogaa maskax ahaan ma loo haystaa markii dambe arintii dhan markaa soo ogaaday marka waxaan dhahay niyow kamaalow saanaa jirto arinta dhanna waatana haddaa adi indhaha istiraysid ma sheegi karo fahme waxa familka hooyada aabbaha ku dhaheen adeer iyo dadkii oo YouTube soo la soo fadhiisanayo arintiina saan ay tahay cirka isku shareeraysay arintan fiiri arintii marka kamaala ku soo wareejiyay kamaalkii marka waa fahmay kamaalkii ama kaaga noqotay waay marka ani yani waay isaan u sameeyay oo bilaabay markii inuu dhaho ani igu sameeyay waay marka ayadii marka waa la xiriirnay marka arintan waxay tagtay serious ma fahmay dhaar ay tagtay wax walbo يعني مقع إلهي كوين داري تكتي أرنتي مركا حقيقتي وحي أسوء قاعدة information كذا حتى واحد على شيء كريم يعني حقيقيين كدن أو حاجرته واحد family issue أو وليبو top secret مركا أسوء قاعدة أيضا قالوا سعودي أي فهمتي مركي دنبع يعني الحمد لله أفكي ذاك قرأتي فهمتي مركا كمالنا مركا اسميش أسوء قنعي مركا أرنتا kamaala u sheegay arintii marka ayada gabadhii afkeeda ku qaratay marka kamaala marka waxaan dhahay arinta ka hadal marka ina ka hadashid ay sheegtid waay wixii bayaan yani wixii oo aragtay ilaahay kula og yahay sax waa aniga waxaan qarinaynaa mala sababto hadda video aan duuban daqiiqadooyin xitaa nus saac marnaba daqiiqadooyin kadib isla markii video cadeynta waan soo fadhiisay wax la qarinayo ma jiro laakiin markii hore qofka adiga xaaskaaga hadii isku dhaho aniga ilmo dhalin waliga wax soo mareen waa aamineen sax ilaa qofkan markaa shukaansiisa wajiga muu qorna maxamuud hadana mid kale dadka fahansiinaya jirto marka la dhahayo qofkan yani heblaayo wasaana ku sameysay yani ma dhihi karo
يعني adoo qof weyn ayna dhahdina yani ma wanaagsaneen laakiin si wanaagsan wax waa loo sheegi karay laakiin yani waay qofkan haduu dhihi lahay waxiisa babligu soo dhigtay arooska ma qarsaneen nikaaxa ma qarsaneen arinta shaki waa dhalin kartaa asi xitaa shaki waa ku dhalin kartaa ina ka yani taas ina xisaabta gelisay ahayd qofkan waa shakin karaa cadeen tus wax itus itaabsiya jirto cadeen tus waatana cadeen laakiin hadaa dhaho يعني قف كان أسعد علي أسيجن كله ما دلين يعني confuse عن قناة ما فهمته مركا أرنتنا وحاف في عن مركا حير كان أكل مريس إتوسي أو إتابسي مركا ما الله رأى إن على هذه يعني ما له باهنين مركا أنا يعني وكو قرابة يعني يعني أو عيال قف يعني عيال دفيريسو يعني حوجا وحنا قناة وحلا ياب له dadka ay la yaabayaan oo qof bini'aadan sameeyeen kullee wixii ku kala fiicnaa ma sheegi karno laakiin xaqiiqada markaa soo ogaanay yani wax laga talaabsan karo maaha wax laga socon karo maaha wax in dadka loo bayaaniyo u baahan waa sida la ajligeeda soo fadhiisanay oo arinta sida saxda ah u jirto oo aan ilaahay ila og yahay ninkana ilaahu ila og yahay marka inaan soo gudbinay marka intaas wixii ka dambeeyo marka ani wax la dhihi karo ani ma aqaani marka kamaale u tala horta intaas waxay ka dambeeyay maxamuud dad badan oo la hadlay dad badan oo wax u cadeeyay ilaa hadana waa isla xiriirina ha aniga laakiin hal qof aan la hadlay hawreerteed maama hawreerteed maamadaas ma sha Allah si fiican ay wax walba igu bayaanisay maamadaas wax walba markay ii sheegtay waxaan xaqiiqsaday marka hore koow aan xaqiiqsaday ilmaha in ay hani dhashay markii aan la tagina kadib oo dhaar iyo kitaab ay isla gaartay waxay ii cadeysay ilmaha in ayada ay dhashay kadib maamada aan weydiiyay sababtoo ah qof ciyaalkiisa ingiriisi ka galay waxa leeyahay qofkan si maskaxiya ma loo haystaa wax ma haysto marka maamada aan weydiiyay maamada waxaan leeyahay maxaa ku kalifi karo in ay dafirto ciyaalkeeda maamada waxay dhahday wallahi ani ma ogay dhahday laakiin waxa huwa ay dhahday in ay ciyaalka ayada dhashay waan laga yaabaa ay dhahday marar badan ninkaas in ay khilaafkooda badnaado ani si ayday dhahday way hal been ku daray family qusaysa inay sheegana ma fiicnaan laakiin maamada si ii sheegtay waa aniga arintaas waa gaabsana laakiin arinta muhiimada waxa way ciyaalka ma dhahay ani hani ninkaas xariga ku xiran ninkaas waa kala tageen ma dhahay wax walba kaas gadaal aska imaana ani xitaa cadeen muu haytaas in as khawli in ay kala tageen cadeen muu hay laakiin waxaan cadeen u helay in ciyaalka ayada ay dhashay kulli wax walba qoran waa dhaca wax walba adduunka waa laga arkaa dad badan aan arkay dhahayeen wax walba adduunka waa ka arkay nin rag oo uur yeeshtay oo ilmo laga soo jiiday leen la arkaynin saxna waa taas wax walba adduunka waa ka dhaca arintana social media ay soo gashay social media waxay soo galaan wax qarsan ma aha anigana hal mid aan khaldanahay hal mid aan galin ka bixnaa midaas oo in arintan markii koow ay cusbeed in aan rumaysan waayo ma ku indhaadaytay ma dadka yani runta yani waa ku indhaadayga laakiin maxamuud ana ku imaadi naagta aan qabto cadeen la'aan waxaan ku dhahay ana qabo ma aamini adi cadeen u baahan tahay maxamuud oo naagtadan ku dhahoysad may qalad u dhacaa kulubna aadan qadaa wa khayru khataa'un atawabun ana khaladkaas ogaan u sameeynin araggan inta ka bixina khalad waa gali sababtoo haddii aniga dambi waxaas igu ahaan lahay anoo og aan aamusi lahay wallahi ilaahay il og aniga ma ogeen haddaan ogaan lahay qofka aamusay mi iyo arinkan wallahi baa ma idin sheegay familkayga aniga marar badan ay dhaheen kamaal arintan sax waa ama sixran tahay ama lagu sixir ama lagu taatno waxaasna wallahi marar badan ay lahay waxaas ma ana waxa diida wax qiila wa qaala yani waxaas ama tahay waxa og tahay ya aad hawaal iyo xaqiiqi in marqaati u haysan yani أنا هذا هو مال الشيء إحنا نقول حن نفهم إلى أن نقول حساب طماعي هذا مو أوجد حالات دقفك وأوجان كرد احتاجا نفهم ضد بدن وأركان قلت إله الدين بيجن الله بمنتين مرجع حواي إلى هينا بحواي غفور رحيم وعي لكن قف هذا خلق بشيء أم يحس أهين أكوت المانتين مرجع قف كاسنا أتكت أسي وأقولاشة وعفي الموجي سكر يعني إلهي هو عفنا إلهي تيسو كعفين كلا غفور رحيم مركا على أنت ماشي سكرتها مركا كمال هذا كلها كبون تذكر أو شيء أورتا أنيجا
arintan ilmaha horta hani waa dhashay xaqiiq way taas ayadana afkeeda waa ka qiratay sababta ay u inkirtay waxaas ilaa hadda aniga ma ogi dad badan ayaa dhahay Kamaal gabadhan xaaskeyga waa dhahay hadda maxaa sameyn doonaa hadda maxaa lagu gudboon marabi in social media aan ka sheego wixii aniga sameyn doono hadda kadib waxaan sameyn doono waxaas noqonaa waxyaabo aniga private ah wixii ila gudboon diinta ku saabsan ama diinta ku salaysan xaqana aan sameyn doonaa marabi social media inaan ka sheego balan waay anigana waligay xaqa u istaaga waligay qof mudulbin dooni waligay wax oo aniga arko inaas khalad yahay mako inda adeegi dooni sidoo kalena waxan hadii soo baxo hadda hal mid aan gudbo Maxamuud qofkan ciyaalka waa dhaliyaal lahay mid kale soo yeeri doonto oo private ahaan isoo gaari doonto waxay noqonaa xarig inaas ku xiran yahay ama ku xirneen wixii aan sameyn doonaan ku dhahay in markaas diintaas ku salaysan oo fanka dadka ma dad ma yani inta maxkamad ma aha dalaal leeyahay dadka yani family-ga yani wixii la sameyn lahay yani arinta private ahaan laakiin waxa wala sameeyay insha Allah arintana sidoo kale dad badan ka soo hadleen taasna ogaan daraa u geesi haddii aadan wax ogeyn waxaan ka codsanaa walaalkay ama walaashay arintana ka soo hadleen adoo si wanaagsan wax ugu sheegi kara yani si qaldan ugu soo hadlay sax waa hadaadan yani ka hadli karina reaction ka bixi iska dhaaf waxaan hada views waaye adduunyo waaye ilbriqsi waaye sikin waaye waa dhimane isla markii intee kaaga bilaabanay godkii kaaga bilaabanay sax waa marka waxaan damiirkaaga iyo qofka wixii oo isla markaas soo dhaho yani aad ogeyn hal dhinac inaad soo qaadatid isla markaas oo qofkii ay iyo waxa loo joogay inaad kula dilacdid ma wanaagsan wax qof weyn sameyn karo yani hor Soomaaliyeed oo badanahay yani waa la isku qaadanaa laakiin ma wanaagsan qofka adoo wax fiican u sheegi kara yani ama iskaga aamusi kara maxaa caynay hadana arintan ma dhex joogtid يعني gurigii waxay ka dhacayaan ma joogtid marka maxaa caynay muxuu ka galabsaday marka wallahi aada ugu xumaa taas laakiin waxa waa caafiya waxa waa maadana waa ku celinaa ilaa dambigeena dhaaf cidii si qaldan u hadashay comment qaldan soo qortay cidii reaction qaldan ka bixisay ilaaha arkayo soo marka aan intaas ugu baxaya كمان نكسي ورجينا إن شاء الله مركا هذا بدن حام بحشو كلي أنا وحي حقيقة هو أوجاني وحي ربط وحي حقه وان أوجاني ما نفعنا أنا والله بين بدين شيء يعلوش وح عنكو خرصنا ما هستي وحن آت أقول حمادي إن أنيجا ليقول تلمام قف وح أدونك أقول لي ذن حكم كيس هذا فاهم لهاد حكم كيس هذا فاهم لهاد والله ممكن تقدر لهن يعني ما عندنا ويت هل سؤال يعني كفتنا حتى أوقاته قفك يعني هادو سحر ساس باور كاس أسرية ضدك آمين سن هادو باور كاس سرية بيل جيتس كبدي سما أنا هذا السحر كوكانسل برا صحوة يعني بيل جيتس أما إسكدا في ضد كان تاجرين تقبله هذا ما السحر كوكانسل مرك عقلي عشقي وحلا فهمه معنا هادو قعمانا وحكو قرطوا لقوا حسابنا عربكم لقوا حسابنا والله أنت بدنا أركي كومنتي إيزو خراي كمال ساس إيساس هاي أنا دم بين هستي وإذا عفية وإذا ما فهم سنين أقال درا إدي هيسي ما فهم سنين يعني عافية لكن هذا كدي كبارن دقة مرك إن شاء الله كل فيديو نزول على مرة مهم ده هذا الكيجا أما قرانات هذا الكيجا وحسن قناع حد كدي wax social media arintan imaan doono ma jiro wixii diinta ku salaysan wixii xaq ah ani waan ogahay ana xalsanayo sheekada meesha ku dhamaadi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh